kuna soo dhawaada muuqaal xiiso badan oo ku saabsan dagaal faneed ka dhex qarxay fanaaniinta caanka ah ee Qamar Suugaani iyo Cabdi Dhaanto. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta dhabta ah ee xifaaltankan kulul ee baraha bulshada ku faafay saacadihii u dambeeyay saameynta goonida ahna yeeshay iyo sidoo kale waxa ay isku haystaan fanaaniintan qoraalo kulul ay isku soo qoreen iyo sidoo kale dagaalkooda halka uu marayo. marka hore inta muuqaalkan bilaaban waxaan ka codsanayaa in muuqaalkan aad like noo saartid sidoo kalena channelka subscribe tiraahday mar walba aad hesheed barnaamijyada iyo wararka kala duwan ee halkan aan soo gelino. aan ku bilaabay waxaa xifaaltan adag uu ka dhex qarxay fanaaniinta caanka ah ee Qamar Suugaani iyo sidoo kale fanaanka Cabdi Nuur Nihaya Cabdi Dhaanto. labadan fanaan oo kamid ah fanaaniinta ugu caansan waqtigan ee geeyiga Soomaaliyeed ayaa waxaa dagaalkooda durbadiiba laga dareemay baraha bulshada ee Soomaalidu sida weyn ay u isticmaalaan sida barta Facebook oo erayo kulul ay isku dhaafsadeen iyo sidoo kale baraha kale ee fanaaniintan ay isticmaalaan. Cabdi Dhaanto oo dansiga bilaabay ayaa ku soo qoray bartiisa Facebook qoraal aad u kulul kaas oo ka careysiyay dhiigana ku kariyay fanaanka Qamar Suugaani. waxa uu yiri fanaanka Cabdi Dhaanto Qamar Suugaani waa fanaanka oo garanaysan intuu qamri ka dhergay xalay wixii garwe ka dhacay waa la yaabay boowe iga foq ayaa ka dhacday meesha hadalkaas oo ahaa ama uu kala jeeday mid uu ku jeejeesayo ama uu ku fadeexsanayo fanaanka Qamar Suugaani walibana ah kaftan marka dhanka kale loo fiiriyo aad u kulul. waxa uu soo saaray sidoo kale fanaanka Qamar Suugaani iyo sidoo kale gabar sawir ay ka soo wada muuqdeen waana sawirka waqtigan idin muuqda. Qamar Suugaani ayaa isagana barta uu ku leeyahay Facebook ugu soo qoray hadal kulul oo u muuqday jawaab uu jeedinayay fanaanka Cabdi Nuur Nihaya Cabdi Dhaanto. anoo ka caansan anoo ka laan dheereysan anoo ka naag fiican anoo ka cod fiican anoo kan nimo badan ayuu yiri fanaanka Qamar Suugaani sidee xaniyahiga ugu dhigtay ayuu yiri ma sidaada oo kale ayaa nahay ragga is waxeeya ayuu yiri halkan kama sheekarnay fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani oo ka jawaab celinayay hadalkii Cabdi Dhaanto. sidoo kale waxa jira qoraal kale oo baraha bulshada lagu faafiyay kuwaas oo labadan fanaan ay isdhaafsadeen sidoo kale fanaanka Qamar Suugaani ayaa isagana sawirka hadda idin muuqda soo dhigay bartiisa Facebook isagoo isla qoraalka hadda idin muuqdana ku soo qoray waa mar kale inkastoo weerarka markii hore uu fanaankan Cabdi Dhaanto bilaabay. haddaba lama oga waxa dhabta ah ay isku haystaan labadan fanaan ee Qamar Suugaani iyo Cabdi Dhaanto bal sida muuqata waxa labadani fanaan uu xifaaltan iyo sijid ku dhex maray magaalada Garowe oo labadani fanaan ay isku arkeen ama ay ku kulmeen. waxaan arki doonaa wixii ku soo kordhay xifaaltankan culus ee dagaalka isku bedelay u dhaxeeya fanaaniinta Qamar Suugaani iyo sidoo kale fanaanka Cabdi Dhaanto. sidoo kale waxaan doonayaa in aan idin la wadaago in ay jiraan akoono badan ama bar badan oo Facebook ah oo fanaaniintan magacyadooda ku qoran balse marka aan fiirso Facebookyada labadooda ay ka soo kala hadleen waa Facebookyada inta badan ay qoraalada ku soo qoraan misna sawiradooda lagu soo daabaco inkastoo 100% aan loobin in si dhib ah ay u leeyihiin labadan ciwaan ee qoraalada soo qoraya. haddana sida muuqata ciwaankan fanaanka Qamar Suugaani oo in ka badan 70,000 oo qof ay ku xiran tahay waa kiisii wax ku soo qoraya halka Cabdi Dhaanto inta badan xitaa mararka qaar live uu ka soo galo sida muuqata uu yahay kiisii dhabta ah. waan arki doonaa arrintan iyo halka ay ku soo